kaamka Qayre ee duleedka bari ee magaalada Caabudwaaq oo ay ku nool yihiin 1350 qoys oo ku soo cayroobay abaarta dalka ka dhacday ayaa qayladhaan ka muujiyay xaaladda bini'aadanimo ee haysata kadib markii ay sheegeen inaysan helin caawinaad muddo 5 bilood ah oo ay deganaayeen kaamka marka laga reebo deeq aan badnayn oo ay ka heleen hay'ado samafala. qoysaskan oo u badan haween iyo caruur ayaa hoy ka dhigtay cooshado la isku dhajiyay waxaana ay u nugul yihiin kuleelka qorraxda iyo qabowga habeenkii. waa kuwaana qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka Qayre oo dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Galmudug hay'adaha samafalka iyo qurba joogta deegaanka ka codsaday in la soo caawiyo. waxaan ugu daran hay'ad waxaan ugu daran cuntaan xanuun baa noo dheeriya hawshan waxaan noo gala waa xanuun baadii ari ijri yaa iga baaba'ay anigana xanuun ugu qabtay xanuunkii waa meesha wali la Allah ilaahayna waa u baahan muslimkana waa u baahan hoynala siiyo waxa weeye garaacadii gabadheerahay midaan maanta aan nooga sii daran adduunyadii waa nag dadkiina waa naf. gudoomiyaha xaafadda Ubax Cabdikaamil Faarax Ismaan iyo gudoomiyaha kaamka Qayre Cabdifataax Faarax Ilmi ayaa sidan uga hadlay xaaladda nololeed ee haysata qoysaskan. arrimo bini'aadanimo waxa lagu dirayaa dawladda federaalka ah hay'adaha caalamiga ah kuwa localka ah cid kasta oo islaamnimada wax kula baxda inay dadka kan u soo gurmadaan. dadkan barakacayaasha ah waxay gaareen 1350 dadkaasoo aan haysan wax allaaliyo waxay macnaha ay ka hoydaan iyo waxay cunaan intaba. dawladda federaalka ah iyo maamulka Galmudugba waxaan ka codsanaynaa inay dadkan la soo gaaraan walaalahooda gurmad degdeg ah. gudoomiyaha ururka haweenka degmada Caabudwaaq Deeqa Cabdi Cilmi iyo madaxa arrimaha bulshada ee maamulka degmada Caabudwaaq Muuse Axmed Maxamed Muuse Inji ayaa sheegay in aan la fiirsan karin xaaladda adag ee ay ku nool yihiin qoysaska kaamka Qayre. dadkan halkaan isugu yimid waa dad soo barakacay sida u jeedaan hadda raggi waa ku yaryaa wuu carari karaa ninka ragga markuu gaajoodo haweenkii way wax meesha ku dhibaataysan iyo ilmihii aan ka codsanaa gacan degdeg in la siiyo dadkaas. dadka kani cayroobay inay silic nololeed iminka haysto anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada waxaan baaq u jeedinayaa hay'adaha ku shaqada leh gargaaridda dadka kaamka kale wuxuu u baahan yahay gurmad degdeg ah. Ayala Cabdullaahi Jaamac Cable TV Caabudwaaq.